Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena aan kusoo qaadanayno what's foundation. Waa maxay marka foundation ama aas-aas marka laga hadlayo construction oo ah dhismaha. Foundation marka waxaa la yiraahdaa waa essential component, okay? Waa xubin muhiim ah waaye markaan joogno building construction, okay? Guryaha dhisidooda marka laga hadlayo foundationka waa xubin aad muhiim u ah, okay? Waana qaybta ugu hooseeda lagu dhahay structure-ka, okay? Ama dhismaha qaybta ugu hooseeda structure-keena uu leeyahay waxaa la yiraahdaa foundation. Waxayna contact la leedahay waxa ay taabanaysaa qaybtaani oo ay dul saaran tahay carrada, okay? Soil carrada ayay dul saaran tahay, okay? Marka wuxuu transfer gareeyaa foundationka ama uu gudbiyaa culayska structure-ka, okay? Ama dhismaha culayska structure-keena gebi ahaanba uu leeyahay ayuu waxa uu u gudbiyaa to the soil, okay? Ciidda ayuu u gudbiyaa. Midaas ayaa ka dhigaysa marka foundationka inuu noqdo kan ugu muhiimsan ama qaybaha ugu muhiimsan ee guriga, okay? Wuxuu ku yiri marka nooca foundationka ee la isticmaalayo ama loo isticmaalayo dhismaha waxa ay ku xiran tahay qodobo kala duwan. Qodobadaas maxaa ka mid ah marka soil type. Nooca carrada. Carrada waa noocyo kala duwan ay leedahay, okay? Sand, loam, maxaa la dhahay clay, noocyo kala duwan oo carraha jirta, okay? Nooca carrada wax ka dhisida horta saameyn toos ayay ku leedahay. Sidoo kale building size, yacni gurigaada size uu leeyahay, cabir uu leeyahay, okay? Balac iyo dhirir ayuu leeyahay. Size-kaasna way ku xiran tahay inta uu la egyahay, okay? Waxa ay kale ku tiirsan tahay type of building, yacni adiga ma guri caadi oo deegaan aad dhisanaysaa, ma meel warshada la dhisaa, okay? Ma goob ganacsiya la dhisaa, ma guri skyscraper oo aad biyaanooyin aad u dhaadheer oo towers ah miyaa la dhisaa. Nooca way ku xiran tahay kulley. Waxay kaloo ku xiran tahay environmental condition, okay? Deegaanka markaas la joogo hadba marxalad uu ku sugan yahay. Ma deegaan ma aragtay qabow badana, ma deegaan kuleel badana, ma deegaan normal aha, ma deegaan ma aragtay humid ama huur lahaa. Sidoo kale ma deegaan uu ku badan yahay dhul gariirka iyo dabaylaha iyo waxyaalahaas oo kale waa, okay? So marka waxyaalahaas ayuu ku xiran yahay horta foundationka gurigaada u dooranayso, okay? Foundationka marka si guud waxaa loo qaybiyaa loo qaybiyaa, okay? Labadanay soo hoosgalaan, okay? Waxa foundation oo jiraan labadan category un bay soo hoosgalayaan. Midka koowaad waxaa la yiraahdaa shallow foundation, midka kalena waxaa la yiraahdaa deep foundation. Maxay kala yihiin marka labadaas? Shallow foundation waxaa ku qeexi kartaa ama ku fahmi kartaa haddii depth-ga, okay? Yacni aas-aaskeena sidaan markuu yahay waxaa jirto width ayuu leeyahay, okay? Balac ayuu leeyahay, okay? Width, okay? B iska dheh, okay? Sidoo kale wuxuu leeyahay marka depth-na wuu yeelanaa, okay? Depth-gaas marka waxaa isaga qaadanaynaa df, okay? Waa depth of the foundation, okay? So marka meeshan qaacidada aan ka barana maxay tahay depth-ga foundation-kaada, okay? Depth-ga foundation-kaada ayaa wuxuu la eg yahay ama uu ka yar yahay ku dhaha, okay? Less than or equal to wuxuu la eg yahay ama uu ka yar yahay width-ka, okay? So marka qaacidadaas iska fiirina, labadan la isku fiirina kaliya. Depth-gaada fiirina, b-daada fiirina. Haddii depth-gaada uu ka yar yahay ama uu la eg yahayba width-ka waxaa leedahay shallow foundation, okay? Ereyga footing inta badan maqashaa. Footing iyo foundation maxay ku kala duwan yihiin? Footing-ka waa qayb ka mid ah foundation-ka. Foundation-ka waxaa la inta aas-aaska ah oo guriga inay celiyaan ka qayb qaadanayda ayaa waxaa la foundation. Laakiin footing-ka waa xubin ka qayb qaadanayo culayska inuu wax ka gudbiyo, okay? So marka xataa mararka qaar shallow foundation-ka ayaa waxaa lagu qeexaa ama la iska yiraahdaaba waa footing, okay? Taasna marka meeshay ku jirtaa. Wuxuu ku dhahay marka culayska guud ee structure-keena ayaa waxaa lagu baahiyaa, okay? Okay, waxaa lagu baahiyaa over a horizontal area fidsan oo jiif ah ayaa lagu baahiyaa macnaha. Markii la soo qaado culayska foundation-ka loo gudbiyo foundation-ka ayaa culayskaas guud waxa uu samayn doonaa inuu baahiyo. Ilaa culayska hal bar oo cayiman kuma dhacayo area fidsan ayuu culayskaas loo wada qaybin doonaa oo lagu baahin doonaa, okay? Marka areas lagu baahinaa marka maxaa waaye waa shallow depth. Depth gaaban waa macnaha oo ka hooseeya ground level GL. Dhulka ayuu ka hooseeyaa macnaha. Qaab kale oo ka fudud haddaan kugu sheego, okay? Foundation-ka marka waxaa laga dhisaa uu ku yiri a reasonable depth. Depth yacni reasonable ah. Then it is shallow foundation, okay? Yacni foundation-ka waxaa laga dhisaa uu ku yiri yacni depth reasonable ah oo yacni la qeexi karo. Tusaale ahaan waxaa la yiraahdaa inta badan
cabirka ugu badan oo shallow foundation oo yeesho waa 3 mitir sida la sheego macnaha sidaas waa 3 mitir ma ka badna hadduu 3 mitir ka badan deep foundation noqon doonaa nooca soo socdo marka la yiraahdo inta ugu yarna sometimes waa la isku khilaafaa koodadka isku mid ma aha qaar waa 600 ay yiraahdeen qaar waa 800 so marka wax caadi ah oo reasonable ah waaye macnaha depthiyada noocaas oo kale ah okay waana ma aragtay wuxuu ku habboon yahay yacni dhul ciidiisu ay fiican tahay oo awood qaadideedu ay fiican tahay okay waana ka raqiisan yahay midkan kale oo deep foundation kala dhahayo in la dhisana sidoo kale waa fududahay shaqaalahana ma aragtay wax complex kuma noqonayaan oo technical ama farsamo ahaan uma baahno farsamo aad u sareyso tiro badan ma u baahna okay nooca labaad waxaa la yiraahdaa deep foundation okay kan waa nooc kamid ah foundationka kaasoo wuxuu ku yiri foundationka la dhigaayo deeper depth okay below the ground level okay waxaa la dhigaa yacni depth ama cumqi ka hooseeyo dhulka okay so marka wuxuuna ku leeyahay noocan depthigiisa wuxuu aad u weyn yahay okay much greater than its width yacni waxa waaye depthigii ayaa wuxuu aad iyo aad uga weyn yahay widthkii okay oo marka noocaana waxa waaye nooc asagana la isticmaalo marka carrada ay jilicsan tahay meel oo ciidda awoodeeda aad u yar tahay oo kale sidoo kale meel laga rabo culays aad u weyn huge ah aad u weyn markii la rabo in la xambaaro waxaa ku fiican deep foundation okay waana very expensive marka la fiiriyo kan kale aad uu uga qaalisan yahay marka la dhaho sidoo kale technical ama farsamo ahaanna wuxuu u baahan yahay shaqaalo very skilled ah aad xirfadoodu u fiican tahay waxaana loo baahnaa qalabyo badan sababtoo ah waxaa la isticmaali doono waa piles okay waa ujeedaa hadda kuwaana yacni waxaana la geeyaa 30 mitir wax kasii badanaa dhulka la gelinaa bahalada marka waxa waaye drillna lagu sameynaa macnaha waa la gelinaa mashiino oo waxaan gelinaya ayaa jiro marka waxa waaye waa complex waa shaqadiisa okay laakiin marka kale la fiiriyo culays qaadida iyo ma aragtay awoodda iyo aad ugu fiican yahay tan kale waa ujeedaa hadda kan dhulku u dhow yahay okay noocan dhulku u dhow yahay waxyaalaha lightweight ka ah macnaha wuxuu ku habboon yahay small building okay dhismayaasha yaryar oo culays badan aan soo koreynin oo haddana haysta dhul yacni ma aragtay iska xoogaa adag oo fiican ayuu ku habboon yahay noocan balse noocan marka carrada ay jilicsan tahay structurada sida skyscrapers ama ma aragtay maxaa la dhahay apartmentska waaweyn oo kale kan ayaa loogu talagalay okay shallow foundationka marka depthigiisa haddii wax cilada ay ku imaadaan in inspection lagu sameeyo ama baaritaan ama lasoo fiiriyo haddii la rabo wuu fudud yahay halka kan ay macquul aysan ahayn in lasoo fiiriyo oo inspection lagu sameeyo maadaama uu yahay wax dhulka ku mudan okay piles ama column tiirar u taagan oo gudaha ugu mudan maadaama ay yihiin waa maxay marka shaqada uu qabto foundationka okay shaqada ugu weyn waa midaan horta okay oo ah culayska superstructure-ka okay superstructure waxaa la lahaa aas-aaska wax ka koreeyo dhan oo structure ah culayska ay leeyihiin oo dhan ayuu wuxuu u gudbinaa carrada okay culayskaas marka lasoo saarayo waa kan verticalka ah iyo midka caadiga uga imaan doono oo lateralka oo ama dabeesha ay soo saari doonto ama earthquake ay soo saari doonto labadaas culays ba kan verticalka ah iyo kan dhinac uga imaana labadaba inuu si safe ah dhulka ugu gudbiyo waa shaqada ugu muhiimsan uu qabto waa shaqada kale marka waxa waa maintain inuu haayo inuu joogteeyo waa okay stability-ga okay stability waxa la xasilooni waa shayga ma xasilooni marka maxaa laga wadaa waa inuu diidayo any kind of movement ama displacement okay wax la yiraahdo dhaqaaq jihaduu rababa ha ahaado kor hoos dhinac nuucuu raba ahaado iyo barabax inuu sameeyo haba yaraadee in uu diidaa la rabaa shayga mar haddii marba uusan waxaana ku caawin kara inuu stability-giisa fiicnaado supportyaasha iyo connectionska uu haysto ayay ku xiran tahay okay sidoo kale foundationka wuxuu dhismaha ka caawinaa in laga fogaado waxa la dhahayo differential settlement okay tusaale ahaan sawirkan aan ku laabanayna gurigan hadda marka sidaan uu yahay waxaa jiro guriga wuxuu saaraa dhulka pressure yacni culays ayuu saaraa okay ciiduna marka maxay ku haysaa pressure okay oo opposite ku akan okay so marka labadaas maxaa la rabaa marka inay uniform ahaadaan oo isla ekaadaan si marka gurigeenna uu u noqdo stable ama mid equilibrium ah okay aan dhinacna aan u dhaqaaqayn marka lagu leeyahay settlement yaa jira macnaha maxaa waa awoodahana badan okay awoodahan ayaa badan okay awoodaas marka haddii badan yihiin maxaa dhacaysa marka in guriga uu didiismo okay xoogaa degitaan u imaado guriga inuu dego okay marka degitaan isla eg wax dhiba ma laha degitaan isla eg oo uniform ah wax dhiba ma laha laakiin differential maxaa laga wadaa yacni qaab aan isla ekeen u degaa tusaale intaan degto intaana sidaan oo kale waa okay so marka degitaan noocan oo kale ah fiiri oo sidaan ah
okay waa non uniform waa okay so marka differential settlementiga marka dambe wuxuu qasbaa in guriga uu dhaco okay sidaan uu dhaco okay waa dareemaysaa okay maadaama inta degitaankeedu aad u badan yahay shaqada afraad oo la rabo inuu qabto waxay tahay inuu haayo structure-kan it is design life okay gurigan cimrigiis inuu taagnaado loogu talagalay ama loo naqshadeeyay inuu jiro gurigan waa inuu hayn karaa foundation-kan okay shaqada afraad marka waxaa waa inuu joogteeyaa structural capacity okay gurigeena waa structure taagan waa qalfoftaas awooday leedahay awood culayska lasoo saari doono ama lasoo isticmaali doono isaga haydo so marka awooddaas structure uu leeyahay inay joogteedaa la rabaa sidoo kale conditionkeedana waxaa la rabaa inay ku joogteyso unchanged xaaladii markaas lagu design gareeyey ama lagu xisaabtamayna oo lagu ogaay in aysan waxba iska bedelin saaxiibayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya waa mahadsantihiin idil ahaantiin